السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي بدا وديال مير والبو الدنيا ذيك جوجتان حلي والبا يمركاسي قرب بويدين تاي وحان إذا لنا هاي كلانتي وعنو ونأكسن هذا بدا ودي هدي أي تاي مركي كوجو رسايات صب وقطجنا الكينا فضلا سبسكرايب صار كدبنا فروقا برا الكاسي عدو هالشور بحنو ديريا وركا أنقلب تايدين هنا وحا كميدا سدح خضب أو صبيب كرتا فشل كشركة جيبوتي سوماليا سومالي لاند وحا مانتا مقالة جيبوتي كفرمية وذا هذا لو هير سريعة أو دحمرية مدح الدولة فيدرالك سوماليا سومالي لاند إيضا شركة نيوية مدنع ayaa xilli markaasi xasaasi ah madaxda shirkani la isugu keenay dalalka dariska ah iyo dawladda Mareykanka oo shirkani ka dambaysa waxay cadeen u yihiin in awood weyn la geliyay in la isugu keeno dadku ay markaasi talada ka goodo labada dhinac ee saameynta leh laakiin shirkani oo fursad weyn noqonaya haddii heshiis laga gaaro waxa hal isku ah saddex qodob oo markaasi fashili kara saddexdaasi qodob markani waxa ay ka yihiin kow dawladda Mareykanka ma cadda waxa Mareykanku markaasi ka damacsan yahay wada hadalka iyo dadaalka badan ee uu geliyay waxaana diblomaasiyadiisa geeska Afrika ay ahayd muddo dheer mid aan miro dhal ahayn taasoo ay ugu wacan tahay inuu arrimaha Soomaaliya u soo maro Itoobiya oo dano gaar ah kale Soomaalida kala qaybsantay taariikh iyo fahan qoto dheerna u lahayn xaaladda geeska Afrika number 2 Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo uu yahay madaxweyne la doortay wuxuu awoodi waayay inuu dadka ay taladu ka goodo ee Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda lagu qanciyo qorshaha Mareykanku wato ee Soomaaliya dib loogu mideynayo wuxuuna doorbiday inuu qariyo arrimaha la soo hordhigay ee midnimadu ka mid tahay Muuse Biixi wuxuu madaxa xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo wadani u sheegay inuu Mareykanku awood saaray oo shirka Djibouti ku qasban yahay inuu tago taasina waxa ku cad inuu markaasi diyaar u ahayn ama ku dhici karin inuu galo heshiis soo hadal qaadaya markaasi midnimo number 3 farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee xilka madaxtinimada iyo xilli doorasho ma joogo waqti uu go'aano waaweyn qaadan karo waxaana markaasi mowqifkiisa hogaamiyenimo hoos u dhigaya inuu heshiis la ahayn maamuladii dawladda federaalka ka tirsanaa isla markaana uu xitaa isku hayn kuwii ay isku heebta ahaayeen ee Puntland iyo Jubaland oo shirka Djibouti markaasi u arkaya mid beeshoodu ka maqan tahay arrimahani oo dhami waxa ay shirkani weyn ka dhigayaan mid aysan labada dhinac u diyaar garoobin oo aana cidna awoodin in la gaaro heshiiska la doonayo waxayna aakhirka u eg tahay in arrimo hoose oo aan masiiri ahayn laga soo saari doono haddii aan markaasi lagu kala tegin shirkani waxaa gudoominaya madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Gili iyadoo ay ka qayb galayaan diblomaasiyiin caalami ah oo uu ku jiro safiirka Mareykanka ee Soomaaliya haddaba qaabkii uu shirkani u furmay ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse oo ku sugan madaxtooyada dawladda Djibouti waxa uu yiri wada hadaladii way furmeen wana in dib loo ambaqaaday wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee bariyahanba looga deynay fadhiyeen marka in ufuudiyo dhan way soo fadhidaa qol gaar ah lagu jira dhinacyadii oo dhan way ku dhan yihiin waxa kamid ah in dabcan madaxweynaha Djibouti oo wadanka martida loo yahay iyo in ufuudiyo reer Djibouti waxa kale oo jooga Abiy Ahmed oo prime minister Ethiopia oo isaguna waftigiisi wata waxa kale oo jooga in labadii dabcan wada hadlaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo jooga in danjiraha Mareykanka in arrimaha Soomaaliya oo qaabilsan Donald Yamamoto iyo xogayihii in IGAD oo isaguna in ka qayb qaadanaya dhammaan way ku leeyihiin waftiyada hadaynu xooga xusno xagga Soomaaliland waxa ku jira in Salabaan Maxamuud Aadan oo ah gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon wasiirka horumarinta Soomaaliland isaguna maaliyadda Dr. Saad Ali Shire wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan سعد ساكن وزير كحنانة حولها سعيد سلوك محمد iyo dabcan ergeyga gaarka arrimaha in wada hadalada u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliland Dr. Adna Aadan Ismaaciil xagga Soomaaliya dabcan waxa joogay madaxweyne Farmaajo waxa joogay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isaguna gudoomiye golaha wakiilada federaalka ee Soomaaliya waxa joogay ra'iisul wasaarihi federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirada kale waxa kale oo joogay Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed wasiirkii arrimaha dibadda Ethiopia wasiirkii maaliyadda Ahmed Shide waxa kale oo joogay wasiirka hawlaha nabadeynta ee dawladda federaalka Ethiopia
دمان إن حق جيبوتينا طبعا مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر قيلة رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد وزير كريمة دبدي جيبوتي محمود علي يوسف وزير كاشاندق جيبوتي حسن محمد وحكلو إن حق جيبوتي جوجو وزير كعدالة وزير كحنانة حولها يبيرها دمان والقول لي هو جدي ولا صدور فرديا سلاس وشركنا وصعدا إن إلا يهد ولو بحكي صوب حي مجرتو وأنا صعدا شركي وأنا اللي صدور فرديا shirka markii uu furmayay ma jireen wax wada hadal ah ama ajendaha shirka ah oo goobta ay laga sheegay oo wariyaashu loo sheegay ma jiro wax ajendaha oo la sheegay wax in ilaa hadda waxa dib la isku soo noqon doona dabcan qoliyihii de waxa leeyeen labada dhinac markaas la qaadan doono in dhamaan waxyaabaha ku wada hadleen waxa ka soo baxay hase yeeshee ilaa imika wala soo fadhiya wada hadalkii ayaa socda in bilowna de uu yahay dabcan muxuu marka asaasida maaragtay muxuu wali way ku jiraan waan qolkii ay ku shirayeen halkii baan wada hadalku uga socdaa marka ramadaan wada hadalku ma la og yahay inta maalmood oo qaadanayo ma maanta oo kaliya ahba ma dhowr cisho soconaya ilaa hadda wali wax la shaaciyay ma jirto ilaa hadda waxaan ognahay in maanta uu furmay oo dib loo anba qaaday wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya muddada fadhiyay in hase yeeshee ilaa hadda lama xaqiijin oo waxa ajenda lama soo bandhigin oo lama odhan intaasoo maalmood uu soconaya markuu maanta furmo in marka dib baan ka ogaan doonaa haddii Allah